السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. janalkay kusoo dhawow walaashay ama walaalkay fadlan hadaad igu cusub tahay subscribe-ka ii saar, hadaad hore ila joogtayna like-ta ii saar, commentigan ii soo qor, dhiirigelin bay ii noqonaysaa insha Allah. xagan waxaan ku haystaa canjeeradii baa dabkii saar, xabadii ugu horeysaan bixinaya ujeedina canjeerada saas ay qurux badan tahay. habeenkii canjeerada si fiican isaga garaaco, hadaada meesha joogta cajiin laga helaynin ma aragtay dhanaanka yaraad markaad duweys wax yar intaad ka ceshatid ku qasaabeenkii adoon cajiin doonanin si fiican way kusoo baxaysaa. aniga canjeeradeeda qofkii arko wuxuu leeyahay cajiin miyaa lagu daro, cajiinna kuma daro, leebitan kuma daro. marka inta yar had markaan dubo kale inta furjalaataan wax yar intaan ka reebtaan habeenkii ku garaaca. wallaahi maasha Allah qofkii cunun baa arki kara dhanankay leedahay macaankeeda. xabadii ugu dambaysan dubaaya mujeediin waa ka canjeerada xabadii ugu dambaysan soo bixinaya. waa kaas qudaartaas ay jijiran digsiyaas dabkii saaran. waxaan rabaa inaan suugadii aan ku cun lahayn inaan diyaariyo. wallaahi waxaan ku dhahay maasha Allah halkan dad badan baa igu soo biiray, qof walba igu soo biir. waxaan leeyahay walaashay ama walaalkay soo dhawow, gacmo furan ku soo dhawow. halkan adiga iska leh, channelka lagaama xigo, cidna kuguma abuse gareyn karto, sidaad doontid ugu baashaal. wardaarta caaxita ii soo qor, aniga wax uun baan rabaa. intaas waa iska hira gaftad. waxaan ku dhahay ilaahay garabkeen ha galo, ani intaan heestaan ku qanacsanahay. wiil baa darad wuxuu yiri abaayo waxaan rabaa inaa caan noqoto darabtaa. ana waxaan dhahay caan sharaf leh baan rabaa inaan noqdaan dhahay, anigoon qabiil caayin, anoo shaqsi caynin. waxaan rabaa telo iyo baashaal iyo kaftan yaa inaan halkan kusoo gudbiyo maahane. wuxuu yiri haddaad saas day tahay uu yiri degdeg caan kuma noqonaysid, dabka ay u yara gaabnaa. wuxuu yiri saas caan kuma noqonaysid, waa inaa adiga samaysaa buu yiri. muxuu yiri horta xabad kili weyn intaa soo gadid shiil, naagaha waxaa tidhahda hooy urto nimankaa kaal nafaqayso saan yeel. baraqdaasaa dha iyo dadkan reality-ga dhan meel iska soo dhigaa dha views raadiska meehiyaa dhani. aniga waxaan rabaan karsanaa, waxaan rabaa soo gudbinayaa, qasab leeguma lihi. haddaan rabaan ku dhahay anoo canjeero iyo shaah cunaa soo duwayaa bas. markii wuxuu yiri wallaahi bilaa ana waxaan dhahay wax been ah ay u imaanin. marka qof kasto siduu isaga raaho nolol. waxaan ku yiri marka walaalow haddaan soo gudbiyo xitaa waxaad sheegtay ma adigaa cunaayo, daawado unbaad tahay weligaa. haddaan halkan kusoo gudbiyo xitaa anigoo intaasoo neef shiilaya xitaa ma adigaa cunaayo. haddaan soo gudbiyo xitaa anigoo nusdoori hilib shiilaya xitaa ma adigaa cunaayo. markaa daawashada un halagaa helo oo laygtii un ii saar baan ku iri, iina sheergarey. haddaada intaas iyo qaba karinna iga daa warkaad igu wadiid. wuxuu yiri walaalay maasha Allah waa ku barooweynay. wuxuu yiri waa ku barooweynay, waxaan dhahay kaftanka iga daa. marka alxamdulilah aniga waa isku qanacsanahay alxamdulilah. maantay afaaraha haddaan aan sameyn waa wax nafaqo leh. hadda halkan nyaanyada markaan ku shiilo waxaan ka samaysan doona suugadayna aad bay u fiicanta. ilmaha caloosha u socodsiinayaa, shiishiyada kusoo darsaday nyaanyadii caloosha ilmaha fadhidoo dhan maasha Allah way soconaysaa. haddaa afaaraha hadaa siisid waa nafaqo, waa borotiin. dadku kuma baraarugsano, waxay ku ordayaan hilib iyo baradho. iyaga laftirkooda ma xumo, laakiin waxa waaye nyaanyada vitamin C baa laga helaa, digirtan borotiin baa laga helaa. marka nafaqo isku dheelitiran baa cunaynaa anaga alxamdulilah. ilaahay garabkeena ha galo. wallaahi horta aniga maasha Allah gabdhaha halkan igu jiro waxaan ku dhahay aad iyo aad bay ii taageeraan. ilaahay garabkooda ha galo iyagana. marka dadka yararka hadda YouTube bilaabo sideedoo kaleento aan weli 5K gaarin ama 10K weli gaarin, waxaan rabaa inaan u sameeyo gruubkaasoo aan kor usoo qaadi karno channelkeena. marka waxaan rabaa inaan live soo gal mararka qaarkood idinla wadaa. maanta live soo galaa subaxeedii oo kale inaan idin sheecaab oo kale live aan soo galay inaan idin dhahaan rabaa. live markaan soo gal waxaan rabaa dad badan oo maanta oo yaa channelkooda hoos inuu kor usoo qaadsamo sidii keega kaleenta iyo kuwa naga sii hooseeyaba. marka sidee baan intaas ku samayn karnaa? marka waa inaan helnaa gruubyo aan telefoon kala qoranaa, aan istaageernaa, aan isdhiirigelinaa.
waxaan ku dhahay marka qofkan walaalka marka raacid oo kale inaa hoos wax ugu qortid aad tiraahdo walaalo ku soo raacay isoo raac inaan kor isku soo qaadno isdhiirigelino meeshaan hadda joog meel ka sareyso inaan joogno ayaa loo baahan yahay sax hadda aniga oo kale bahalka markaan sameysanayay channelkan wuxuu ahaa sanadka 2019 4 sano laga joogaa sanadka shanaad baa lugta la sii gelayaa marka maxaa dhacay marka aniga abal markaan furinayay waagaas aad baa waxa loo xiiseyn jiray TikTok فيديو ياشاس marka aan soo qurxiyo aan iska soo gelin jiray marka dambe waxa dhahay waxa ku fiican inaad ka shaqeysato YouTube kan ma sha Allah wax badan baa laga faa'iidaa sida daraadid baan hadda u doortay inaan dib ugu soo laabto sanadahaas kale gabalooyinka aad iyo aad ugu mashquulsanaayo ma haleeleenin aan shaqooyinka hadda aan haay inaan galo balse haddartaan waxaan dhahay jaaniskaaga si kasto u yaryaa waa inaad jaanis yar raadisaa oo aad meeshaanaytii adigana aad waxaad tari karto aad umad usoo gudbisa aad awoodid halka saasa ku soo laabtay aan ku soo galay alxamdulillah marka waagaas dad ila jooga way jira maanta ma sha Allah meesha dani ay jooga meel ka sareysi jooga qaar baa 10,000 dhaafay qaar baa 15,000 dhaafay fiir bal ani intaan jiifay aan mashquulsanaa aan marna umul ahaa marna xaamil ah marna meel u guureeyay ay intaas ugu dhaafay alxamdulillah gabdhaas waxaan leeyahay hore u socdaa marka ani waagaas xoog ma saari jirin laakiin hadartaan waxaan rabaa inaan xoog saaro oo meeshaanayteen ma sha Allah ay noqdo marka waxaan rabaa inaan yaa mishaaridaas quruxda badan inaan soo kariyo iyadana marka biyaha in yar ugu soo darsado waa 5 qaado mishaari ah ilmahay waxay jecel yihiin ilaa markiis markay canjeerada cunaan ay barqadii oo kale markii ay sii seexanayaan inay mishaari cabaan ilmaha soo lama arki jirin subaxii mishaari aroortii hore iyagu saas maaha subaxii hore waxay jecel yihiin inay cunaan canjeero iyo macasaro kadib inay canjeeradaas iyo suugadooda cunaan ama waxaan ku dhahay ay mishaaridooda kadib inay cunaan maana subaxii koow la soo kacay mishaari ka bilow ma yaqaanaanba xaladaas haysato marka anaa baran u maleynaya waxa aniga bar waaye marka gabdho fiidiyoyada waxa laga yaabaa inay soo dhaxgalaan kii hore aad daawano kale inuu dib nagu soo laabto ma aqaan marka kale uu iska daawado way dhacdaa marar qaar kood faartka rememberka iyo waxaas waniga daaya alxamdulillah waxaan ku dhahay Soomaalidii hore Soomaali bay ahayd aad bay isku taageeri jireen aad bay isku dhiirigelin jireen dadkeen hadartaan walaa qofka kaleente wuxuu isleeyahay yaa ugu sarey xifaaltan baa ku wada jirnaa meel horta dumarka ilaa baba isku darayba dumarku isku taagina ka xeeblaa iga maseer xeeblaa halkan ka baxday haddana gabdhii aad wuxuu ugu cawanay waayidan dambe had gabar daraad waxay leeysay abaayo gabar ninka aniga qawiya aniga magaalada geeskeeda deganahay jibcii buu walaalihiisa gabdhaha walaalihiisa magaalada dhinaca kale ka degan buu wuxuu ugu tagaa salaan markuu u tagaba way soo waxba u soo sheegay isagoo xanaaqsan buu imaanaya markaas waxay leeyihiin maalinta dambe waxaan waraalaalo maxaad la xanaaqsanta markaad gabdhaas u tagto waa walaale waa ruum gabdha walaale mar walba waxay dhahaan guriga degantaa qaali waaye baxbeeniyaajan marka waxba meel kuuma dhigmaayo sidaan weeye kan weeye iyo waxaan loo joogin bay wiilkii ku akhriyaan marka aad iyo aad bay u dhibsatay ani waxaan dhahay bal waxaan warkooda iska dhaaf naagaan wareersan marka waxay dhahayaan reer kale intaad ku samaysan lahayd mishaar halkaas kaaga baxayo waxaaga yaryareyso halkan keen jeengadahan dhinaca ka soo degto qof walbo isaga noloshiisa khaas ah u ahaato maxaa dhaxgeliyaba war gabdha walaalihiin wiilasha walaalihiin naagay qabaan iska dhaafa Soomaalida saayelna wallahi waxaan ku dhahay sida adiga fiir waxaan la yaab dumarkeen Soomaalida gabadh waxay rabtaa inay ku noolaad noloshtan ugu sareyso inay noqoto qof qurux badan inay noqoto qof naagaha gurigeeda inay naagaha ka maseeraan oo qurux badnaaday rabtaa ninkeed inuu baar u noqday rabtaa in kaligeed la qabay rabtaa wax walbo way rabaan laakiin hal dhibaato haysato ma aqaan jaahilnimada meesha ugu dambeysay maray naagaas ilaahay naga ma dhigay ayada waxay rabtaa nolol fiican walaakiin naagtu qoon nolol xun bay rabtaa bal umurtan eega anu waxaan la yaabanahay waxaan aniga jecelahay maxaan qofka walaalkay ugu diidaya Allah xaasid ilaahay iga dhigin waxyaalaha ilaahay ugu mangal waxa kamid ah
ilaahu xaasita iga dhigin baan dhaha mar walibo ilaahu daneysana iga dhigin marka heerkaas oo dhan wallahi waa dhibaato gabadh walaalkaaga qabo walaalay ka dhamo oo iska xisho acuudu billaahi minash shaytaan rajiim war dumaashiyaasha ma aragtay qaarkood aniga dumaashi waan ahay naagta lagula qabo ayadaa ka maseer badan bisinka weligaa ma aragtay adii xijaabaad soo gadatay oo lasoo gadana kabaad soo gadatay lasoo gadana war qaar waxaa arkaysaaba waa kas muu jeedaa haraha si u socdaa way isqurxinaysaa oo maxaa rabtay in aan naag reebaadii ahaadon guri dhex fadhiyo oo wiil walaalkiina wuxuu keen aan u yaryaray oo maanta aan duruufsanaa ma rabtiin oo duruuf ku jiro yahu iga taga naagaas naaga maahane wallahi way iga yaabshan gabdhihii dumarkii waaba yaaban yihiinba ayada waxay rabtaa inay naag qurux badan oo cad ahaato oo gurigeeda u shidnaado walaalkeed waxay rabtaa inuu lacag aruursado oo meel wax dhigta naagtiisa reebaadii guri ku jirto inay noqoto maxaa ka faa'iideysaa adi bal maxaa ka faa'iiday gabadhaan walaashaada nolosha quruxda badan adiga aaribta ayada maxaa ugu diidan tahay heerkaas maxaa ku gaarsiiyey waryaa ilaahay yaqaan war dumar oo gabadha walaalkiina qabo faraha ka qaada dumaashidiin faraha ka qaada war dumaashidiin faraha ka qaada maalin habeen idin leeyahay wallahi ana waa yaabanahay wallahi gabdhihii way yaabeen maxay dhaheen bar adiga sida isku rabtid qof walaalka u ogolow xaasidnimo hadday wax tareys kuwii kaa horeeyaa soo daalaa ku dhahay marka halays ilaalisho yaan la sheekaysan dumaashi halayska ilaaliyo nabadgelyo hala siiyo